بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ودكتور محي الدين حسن محمد oo qaahiro jooga waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo fiidiyogan yar clip yar oo ku saabsan wacyigelinta caalamiga ee coronavirus insha Allah marka waxaan rabaa inaan isweydiino coronavirus muxuu yahay waa virus ku dhaca neef mareenka jirka gaar ahaan sanka iyo cunaha iyo tuubooyinka hawada iyo sanbabka xanuunkaas ku dhaca way xanuunkan calaamadihiisu maxay yihiin calaamadihiisu waxay la mid yihiin aadna ugu dhow yihiin calaamadaha hargabka waxaa ka mid ah qufac iyo qandho iyo marka dambe neefta oo qofka dhibta oo qofku neefta ay ku adkaato cudurkan sidee lagu kala qaadaa siyaabaha lagu kala qaado aad baa lagu kala duwan yahay badanaa laakiin inta la isku raacsan waxaa ka mid ah horta taabashada in aad loogu kala qaado taabashada isku neefsiga tooska ah in la isla fariisto la isla sheekaysto meel badan dad badan joogaan la isugu yimaado isu dhawaanshaha jireed in qofka jirkiisa ay isgaaraan in la isku hindhiso la isku qufaco la wada sheekaysto qof xanuunka qaba saasa lagu kala qaadaa inta badan xanuunkan yaa u nugul xanuunkan qof kasta ku dhici kara qof difaaciisu fiican yahay iyo qof si fiicnaynba waa ku dhici kara laakiin waa loo sii kala nugul yahay yaa u nugul waxa u nugul inta badan dadka difaacooda hooseeyo cudurrada difaaca hooseeya mesela qaba sida sonkorta dhiigkarka cudurrada wadnaha ku dhaca ee heart disease loo yaqaano cudurrada sanbabka ku dhaca COPD wax la mid ah iyo dadka difaacooda hooseeya dadka HIV AIDS qaba dadka daawooyinka difaaca daciifiya qaata dadka baarta waayeelka ah oo da'doodu 60 sano ka weyn tahay dadkaas oo waxa la dhahaa dadka difaacooda hooseeya dadkaas aad ugu sii nugul laakiin qof kasta dhalinyaro iyo dad waayeelaba cudurku uu ku dhici kara cudurka waxyeeladiisa marka waxa u nugul gaar ahaan dadka waayeelka ah gaar ahaan dadka dhalinyarada xataa waxa u nuglaan kara dadka dhalinyarada oo sanbabkooda mesela uu caafimaad qabo sida dadka sigaarka caba ama xashiishada caba ama saasoo kale shiishadan ka wada caba cudurkan ma loo dhintaa cudurkan guud ahaan waxa la dhahaa boqolkiiba 80 dadka uu ku dhacay uma dhintaan nisba yar oo boqolkiiba 20 ah ayaa maartay waxay yeeshaan calaamado badan oo u baahan qofkaas in isbitaal la jiifiyo marka boqolkiiba 20 ayaa dadka cudurkan isbitaal u jiifsata laakiin boqolkiiba 80 guryahooda ayay joogaan kuna caafimaadaan marka dambe ayaamihii bilowga ahaa waxaa WHO ay tiri boqolkiiba 2 ilaa boqolkiiba 3 way dhimashada death rate-ka laakiin hadda kor bay usoo yar kacday 3.4 ilaa 4% ayaa hadda dhimashada dadka caadiga ah ay maraysaa laakiin percentage-kaas 2 ilaa 3 ah waxaa xoogaa ka yar badan dadka waayeelka xanuunka ku dhaco ama difaacoodu daciifka yahay ama dadka xaaladaha gaarka qaba ayaga percentage-kooda ilaa 15% ayaa uu hadda maraya cudurkan ilaa hadda wuxuu ka jiraa 188 dal oo dunida ku yaala Soomaaliyana ay kamid tahay ayuu ku jiraa WHO waxay u aqoonsatay inuu yahay cudur pandemic ah oo maartay adduunka oo dhan gaaray maadaama 188 dal uu marayo guud ahaan waxa la dhahaa dadka xanuunka ku dhaco boqolkiiba 20 ba u baahan in isbitaal la jiifiyo boqolkiiba 20 baa waxay u baahan tahay in isbitaal la jiifiyo laakiin boqolkiiba 80 kale guryahooda ay u baahan yihiin lagu karantiilo ama iyagu si iskooda ay isu karantiilaan طيب marka percentage-ka uu ku dhaco mesela 100 qof ku dhaco 20 qof ka badan baa isbitaal u baahanaysa marka soo qaad Soomaaliya hadii mesela dad badan oo Soomaaliya ku dhaco nisba badan ayaa oo 20 ayaa u baahan in isbitaal la jiifiyo dalkeena ma u diyaarsan yahay isbitaallo mesela qaadi kara intaas oo qof isbitaalada ma aha isbitaalada caadiga oo dadka caadiga dadka lagu dhex darayo wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah iyo meelaha loo yaqaan ICU-ga ama cinaaya murakaza oo u baa qalabki gaarka ah loogu talagalay iyo qalabki lagu neefsan lahaa hadii qofka neeftu qabato iyo baaritaano dheer iyo mesela qofka dhiigiisa iyo pH-ka dhiigiisa iyo ABGC waxyaabo noocaas oo badan buu u baahan yahay marka wadankan ma u diyaarsan yahay ilaa hadda dawladaha Soomaalida iyo maamulada kala duwan baan ka sugaynaa ilaa hadda looma diyaarsana caruurta waxa dadka xanuunka laad ku dhaca boqolkiiba 2 baa caruura inta kale waa dad waaweyn marka xoogaa caruurta tiradooda uu ku yar yahay imisa u dhinta ilaa hadda imisa u dhimatay hadda waxaa la shaacinayaa 13,671 qof in ilaa hadda maanta 22 Maajo inay u dhinteen in ka badan Talyaaniga oo kaliya waxa u dhimatay 4,200 qof Talyaaniga kaliya wadamada ugu badan hadda waa Shiinaha iyo Talyaaniga Iran iyo dalka Kuuriyada Koonfureed Mareykanka ku soo xiga dalal badan oo reer Yurub oo Faransiiska iyo Ingiriiska ay kamid yihiin Africa Nigeria iyo maartay Senegal iyo Soomaaliya iyo Ethiopia Kenya dalalkaas waa aad uga jira marka see looga hortagi karaa xanuunka si kooban cudurkan waxa looga hortagi karaa nadaafada lagu dadaalo farxalka iyo mesela hadii mesela bas raacaysid ama meel dadku mesela mujtamac isugu yimaadaan aad fuulaysid inaad gacmahaaga dhaqdid hadda dhaqtaan ka gaarin aad isticmaashid
antiseptic iyo waxyaabaha maartay alcoholka oo kale ah oo mesela markaad meel taabatay ama gaariga albaabkiisa furtid ama wax kala samaysaad gacmaha ku buubuufsatid kadibna aad gacmahaaga aad si fiican maartay isu marisid isu dhexgelisid oo aad saas samaysid iyo in la xirto maski baalka afka lagu xirto sanka lagu xirto hadii mesela aad ka maarmi weydo inaad banaanka u baxdid inaad sanka iyo afka daboolatid oo maartay baalkaas aad xidhatid marka aad tagaysid meelaha mesela public oo kale halkan qaabka loo xidho maskiyo kala duwan baa jira dabcan oo siyaabo kala duwan loo xidho marka hadda adigu kii heli kartid viruska maadaama uu virusyada kale xoogaa size ahaan ka yar weyn yahay shay kastoo afka lagu xidhaayo ama mask kastoo la xidhaayo qofka uu ka badbaadin karaa laakiin maskiga laftirkiisa ayaa waxaa la rabaa in si joogto ah la isaga bedelo oo maaragtay laftirkiisa aadan dhowr beri ku noqnoqon oo maskiga maalin xidhata maanta labaad ku noqon kala fogaanshaha ama waxa loo bixiyay social distancing dadka in kala fogeeyo oo مثلا daa xafiis dawladeed ama xafiis shaqo aad tagaysid in dadka laftirkooda masaafo loo dhaxaysiiyo sida suuqyada iyo masaajidda iyo saas oo kale wadanka hadda anigu aan joogo Masar masaajidda waa la xiray masaajidda dadka guryahooda ku tukada ayaa la yiri iskuuladii jaamacadaha waa la xiray Soomaaliya sidoo kale arrinta ugu muhiimsan waxa qofku inuu inta cudurkan uu hadda faafsan yahay gurigiisa joogo stay your home ila gurigaaga joogtid oo adiguna ka nabad gashid adigana hadaa xanuunka qabtid laga nabad galo cuntada مثلا waxyaabaha aad u booreen waxa kamid ah dadka cuntooyinka inay guriyaha ku samaystaan mesela hadaa makhaayad cunto ka cuni jirtay cuntada makhaayada ka qaado gurigaaga ku cun meesha makhaayad inta dad badan ay makhaayad suuq imaan lahaayeen oo halka khatar ka imaan lahayd cuntada makhaayada ka qaado kadibna gurigaaga ku cun hadii aadan ba marka hore guriga ku samaysan karin biyo badan oo cabitaan badan baad u baahan tahay biyo badan cabtid biyaha aad cabaysid waxa fiican oo lagu taliyo biyo inaysan ahayn kuwa talaagada laga soo saaray ama baraf lagu daray ee biyo xoogaa yar qandaca ama kul ay yihiin waxyaabaha xoojiya difaaca sidoo kale la isticmaalo sida vitaminiska iyo qudaarta qofku inuu vitamin C iyo maarta waxyaabaha qudaarta vitamin C ku badan yahay lemonka iyo toonta iyo basasha waxyaabahaas oo iska sii qaato aad iyo aad bay difaaciisa wax uga taraysaa in la iska dhaafo مثلا sigaar cabka qofkii hore sigaar koob cabi jiray ama shiishada cabi jiray inuu iska dhaafo maadaama ay difaaciisana sii daciifinayaan sababkiisana dhaawac sii gaarsiinayaan xanuunkan iyo xanuun neefsiga iyo sababka ku dhaca qofkii calaamado yeesha ama calaamado isku arkay inuu iskiisu karantiilo ama karantiilka wax loo yaqaan qofku inuu gurigiisa joogo oo qol gaara guriga dad dabcan ku nool Soomaalida guriyada waa naqaan dad badan baa ku wada nool laakiin guriga laftirkiisa marka aad karantiilaysid waxa la rabaa dadka guriga kula deganaato inaad iska sii karantiishid oo meel gaara aad isku haysid mesela adigu cuntada weel gaara ku cuntid si gaara isaga taxadartid dadka aysan aad ku soo booqan saas oo kale xanuunkan daawo ma leeyahay xanuunkan horta hadii aad lacala isku aragtid oo aad gurigaaga isku karantiishid waxa kaliya isticmaali kartaa waa inaad qandhajibin isticmaashid iyo daawooyin vitamins wax la mid ah qandhajiminta laftirkeeda waxa lagu talinayaa in la isticmaalo paracetamol laakiin aan la isticmaalin daawooyinka loo yaqaan non-steroidal anti-inflammatory drugs kama NSAIDs ibuprofen iyo daawooyinka la mid ah waxa lagu taliyay inaan la qaadan iyaga qofka xanuunku uu maartay ku dhaco ama xataa dadka kale ee khatarta ugu jiraan sida daawooyinkaas qaadan ayaa lagu taliyay dawo cudurka malaria ilaa hadda dawo la isku raacsan yahay oo ama FDA approved ama CDC approved gareysay ama WHO ay soo saartay ama wadamada qaar ku dhawaaqeen ma jirto laakiin shirkado kala duwan oo Faransiiska iyo Jarmalka iyo xataa Mareykanka kamid ah waxay soo saareen in chloroquine iyo azithromycin oo midna anti malaria tahay midna antibiotic tahay inay cudurka wax ka tari karaan laakiin ilaa hadda adduunyada isku ma raacin oo lama oran dawadan ayaa coronavirus wax ka taraysa ee waa wax wali baaritaan ku jiro oo isku halayn karin.